dalka geeska Afrika kaligood kuma aha dadaalada ay ku jiraan arintaas dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ku howlan tahay qaaradda dhexdeeda We owe much to Kenya for their steadfast support for Somali's people over the years. Soomaaliya iyo Kenya waa laba dal oo wadamo daris ah isla markaasina leh xeebta badweynta India ku teedsan isla markaana la xiriir saaxiibtinimo oo nabadeed abaal ayaanu uga haynaa dawladda Kenya taageeradii hagar la'aaneed ay sanado badan la garab taagneed shacabka Soomaaliyeed walow xiriirka guud ahaan uu fiican yahay haddana xuduudeena dhanka badda ah wali lama jaangoynin taas ayaana sal u ah isfahmiwaaga u dhaxeeya labada dal ee walaalaha ah wada hadaladii laba geesoodka ahaa heshiis waa lagu gaari waayay si marka loo helo xal nabadeed oo cadaalad ah sanadkii 2014 Soomaaliya iyada oo raacaysa sharciga caalamiga ah ayay bilowday in ay dacwadan horgeyso maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda si cadaaladda hay'adaha sharci ee ugu sareeya qaramada midoobay maadaama ay tahay waxaanu ku faraxsanahay in maxkamaddu ay cadeysay in sharciyad iyo awoodba ay u leedahay in ay ka garnaqdo khilaafkan isla markaasina ay dhageysato ugu dambeynteena kiiskan ay u qoondeysay toddobaadka ugu horeeya bisha November Soomaaliya maadaama ay tahay xubin ka tirsan qaramada midoobay ayna qayb ka tahay una hoggaansan tahay sharciga maxkamadda waxay ka go'an inay ka dhul sugto dhamaadka hanaankaas halka garsoorka Soomaaliya loogu raadinayo muranka Soomaaliya waxay ballan qaadaysaa inay hoggaansami doonto xukunkaas kama dambeynta ah ee maxkamadda inay aqbasho xadka ay maxkamaddu jaangoyso maadaama arintu ay tahay mid la xiriirta sharciga caalamiga ah xukunka maxkamaddu waxa sidoo kale uu qabanaya wadanka Kenya waxaanu ku kalsoonahay marka xukunkan la soo saaro in la jaangoyo xuduudda xalna loo heli doono khilaafka muddada dheer soo jiitamay Mr. President, I would like to further to report that at the margin of the 74th United Nations General Assembly in New York mudane madaxweyne waxa sidoo kale aan jeclahay in aan idin la wadaago in habeenkii talaadada 24 September 2019 madaxweynaha Masar mudane Abdel Fattah al-Sisi sidoo kale na ah gudoomiyaha midowga Afrika ee hadda uu soo qaban qaabiyay isla markaana shir gudoomiyay kulan barbar socday shirweynaha guud ee qaramada midoobay oo ka dhacay New York oo u dhaxeeyay aniga iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kulankaasi oo ahaa mid midadhal ah waxaanu isku raacnay in dib loo soo celiyo xiriirkii walaaltinimo ee wanaagsanaa lana xoojiyo iskaashiga diblomaasiyadeed iyo midka siyaasadeed waxa intaas dheer in khilaafka badda ee u dhaxeeya labada dalba loo daayo maxkamadda caalamiga ah si ay u xaliso Soomaaliya waxa ka go'an in xiriir fiican ay la lahaato Kenya iyo dhammaan dalalka gobolka mudane madaxweyne dawladda Soomaaliya waxa ka go'an ajandaheeda dawlad dhiska waxaana ilaa iyo hadda aan guulo ka gaarnay xoojinta siyaasadda loo dhan yahay xoojinta dimuqraadiyadda iyo adkeynta hay'adaha qaran ee dib u dhiska iyo udub dhaxaadka u ah in la helo bulsho xoogan waxaanu idin la wadaagayaa in dawlad goboleedyada qaarkood ay ka qabsoomeen doorashooyin taas oo hordhac u ah doorashooyin heer qaran ee baarlamaan iyo madaxtinimo oo la qorsheeyay in la qabto 2021 waxaana naga go'an in aan fududeyno in guul laga gaaro arintaas iyada oo la marayo sharciga doorashooyinka oo ah mid loo dhan yahay diiwaangelinta codbixiyaasha bulshada in lagu wacyigeliyo muhiimadda siyaasadda loo dhan yahay ay u leedahay horumarka dalka marka la fiiriyo waxaa caddaanaysa in Soomaaliya ay tusaale wanaagsan oo taariikhi ah u tahay dib u habeynta iyo adkeysiga iyo horumarka oo ay soo kabashada ay bulshada Soomaaliyeed hormuudka ka tahay wada hadalladeena heer qaran ee hadda waxa diiradda lagu saaraa xaqiijinta siyaasad loo dhan yahay tayeynta adeegyada dawladda dib u habeynta maaliyadda dhaqaale kobcinta dhaqaalaha dawlad wanaagga sare u qaadista iskaashiga heer gobol iyo sidii ugu dambeyn looga guuleysan lahaa baadigoobka sunta looga guuleysan lahaa haraadiga
sunta argagixisada caalamiga ah inagoo kaashanayna saaxiibadan caalamiga ah ee guda iyo dibadda waxaan sidoo kale hubaa in aan aad iyo aad noogu raaci doontaan wadahadalladan loo dhan yahay in ay buddhig u noqon doonaan in Soomaaliya ay gaarto horumar waara iyo barwaaqo guud ahaan ay gaaraan dalalka gobolka iyo kuwa caalamiga ah si kastaba marka laga yimaado guulaha la taaban karo haddana dib u soo kabashada buuxda ee Soomaaliya waxaa horgudban caqabado aad u fara badan dowladda federaalka ee Soomaaliya laga bilaabo markii aan xafiiska imid waxa aan aad xooga u saarnay qarashaad badan aan ku bixinay amniga maxaa yeelay waxa ku xiran dhammaan arrimaha kale sida tirtiridda saboolnimada waxbarasho tayo leh in la helo wax ka qabashada cimilada iyo wadajirka annaga oo kaashanayna saaxiibadeena caalamiga ah ayaan si joogto ah waxaan uga shaqaynaynay tirtiridda argagixisada xagjirka iyo howlgalladooda Soomaaliya arrintan ma ahayn mid fudud sababta oo ah al-shabaab waxay adeegsanayaan taktikooyin cunfi iyo gacan ka hadal iyo fulaynimo ku astaysan sida qarxinta muwaadiniinta iyo aan waxba galabsanin iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay si kastaba marka la eego istiraatiijiyadda guud ee xagjirnimada lagaga badbaadinayo dadka qaybta ka ah howlgallada military ee aan ku guuleystay Soomaaliya waxa aan ka qabsanay deegaano hor leh al-shabaab waxaan ku guuleysanay xoojinta awoodda ciidanka qaranka sida waxaan ku kalsoonahay in dadaalada wadajirka ah ee aan la leenahay AMISOM iyo saaxiibadeena caalamku ay miro dhalayaan taasi oo faa'iido ay ugu jirto Soomaaliya shacabkeena iyo sidoo kale xasiloonida gobolka waxaan dhismihiisa wadnaa ciidan aad u xoog badan oo fiican si wanaagsan loo tababaray sidoo kalena hay'adaha ammaanka ee dubdhaxaadka u ah wadanka ayaanu aad uga shaqaynaynaa sidii loo dhisi lahaa ilaalinta xuquuqda bini'aadamka kuwaasi oo mas'uuliyiinta Soomaaliya mas'uuliyadda amniga Soomaaliya la wareegi doona dowladdeenu iyada oo kaashanaysa AMISOM iyo saaxiibadeeda kale ee caalamka waxa si xoog leh ay uga shaqaynaysaa in yoolkaasi la gaaro iyada oo la raacayo qorshaha amniga qaranka halkan marka la joogo waxaan rabaa in aan u mahadceliyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dumar iyo ragba dhammaantood dalalka ciidamada ugu daaqay Soomaaliya iyo dhammaan saaxiibada caalamka ee siyaasadda siyaabo kala duwan Soomaaliya uga caawiyay sidii ay u soo kaban lahayd waxa xusid mudan in sinaba aanay u sahlanayn dib u habeynta ballaaran ee aanu ka wadno dadaalada aanu naga go'an ee aan dib ugu soo celinayno waxaan hadda diiwaan gelinay dhammaan ciidanka qalabka sida sidoo kale waxaan dhawaantan soo gabagabaynay baaris lagu wado guud ahaan hay'adaha amniga dalka diiwaan gelinta ciidanka waxay dawladdu fududeysay in ay meesha ka saarto ciidankii been abuurka ahaa ee aan jirin si ay u qiimeyso diyaar garowga dhinaca howlgallada ciidamada waxa sidoo kale inoo suurta gashay inaanu helno dhaqaale aan lagu bixin jirin meelo kale si loo adkeeyo amniga dalka Soomaaliya waxaan ku qanacsanahay in dib u habeynta miro dhalka ah ammaanka Soomaaliya uu furo u noqon doono inaanu helno hanaan amni oo la isku halayn karo isla markaana lagu ilaalinayo badqabka iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed mudana madaxweyne dhab ahaantii waxbarashada tayada leh waxa ay xoreynaysaa awood siinaysaa rajo u abuuraysaa sidoo kalena daaha ka faydaysaa riyooyinka iyo himilooyinka hal abuurka ku aadan taas waxay sii keenaysaa inaan dhammaanba helno caalam intan ka sii wanaagsan dhammaan dadaalada waxbarasho iyo guud ahaan dadaalada horumarineed meel kasta oo adduunka ka mid ah waxa budlig ay u yihiin loogana dhigaa waxbarashada iyadoo oo la taageero heer qaran iyo heer caalami ahba loo raadinayo astaan muhiim ah oo muujinaysa in dib u kabashada Soomaaliya ayaa waxa ay tahay baahsanaanta iyo adeegyada waxbarashada dowladda iyo kuwa xarumaha gaarka loo leeyahay ay bixiyaan oo dhammaan heerarka kala duwan ee waxbarasho waxa sidoo kale taas ka buuxda waxa si buuxda aan sidoo kale u fahamsanahay baahida loo qabo in la dhiirigeliyo lana taageero hanaanka iskaashi ee dowladda iyo xarumaha gaarka loo leeyahay ee ku salaysan adeegyada waxbarasho iyadoo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya door kormeer oo kaliya ku leedahay marka laga yimaado tagtadii adkeed ee Soomaaliya ay soo martay ujeedooyinkeena waxbarashada ee muhiimka ah dowladda Soomaaliya aanu u leedahay waxa ka mid ah hanaanka iyo qaabka iyo maareynta waxbarasho tayo leh tani waxa ay muhiimad gaar ah u leedahay jiilasheena yaryar si ay ula jaan qaadaan
dhaqaalaha caalamka ee cusub isla markaasina ay uga faa'iidaystaan waxa ay ku biirinayaan yoolalka horumarka waara ee 2030 marka la fiiriyo muhiimadda waxbarashada tayada leh ay u leedahay geedi socodka nabadeynta iyo dawlad dhiska iyo guud ahaan horumarka dawladdeenu waxa ay bilowday dib u habayn baaxad leh oo ay ujeedkiisu tahay in la baahiyo helitaanka waxbarasho carruurteenna bulshada la hakraday dadka baahiyaha gaarka ah qaba gabdho iyo wiilalba waxaan si cad xooga u saaraynaa waxbarashada dhammaan ardayda gaar ahaana fasallada hore sidoo kale waxaa naga go'an in aanu kordhino tirada dadka waxbarashada isu diiwaan gelinaya iyo inaan waxbarashada ku salayno fursadaha suuqa si loo kobciyo dhaqaalaha loona abuuro shaqooyin aad loogu baahan yahay taasi oo keenaysa kalsooni in loo abuuro shacabka waxaa cusub mudan in dowladda Soomaaliya ay ku howlan tahay diyaarinta manhaj qaran oo tayo leh isla markaasina loo dhan yahay iyadoo taasina ay barbar socoto dayactir dugsiyadii hore ee dowladda in aanu abuurno dugsiyo farsamo oo lagu barto sidoo kalena aanu ku tala galnay in aanu sameeyno macallimiinta tayintooda iyo maamulayaasha dugsiyada iyo jiilalka soo socda sanadkii shanaad Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay qaado imtixaanaadkii heer qaran arday aad badan oo ay ku mid yihiin kuwa baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan kuwa aragala ayaa ka qayb galay waana ay ku guuleysteen waxaan ku faraxsanahay dhammaantood waxaanuna la shaqaynaynaa oo aanu wadaynaa dadaaladeenna aanu fursadaha ku siinayno fursadaan uga abuurayno waxbarasho shaqaalaysiinta inaga oo dejinayna siyaasado waxtar u leh abuurayana iskaashi aad u xoogan diyaarinayna goobo laga heli karo waxbarasho kalena u abuurayna dhammaan dadka Soomaaliyeed si aanu u tayno waxbarashada iyo guud ahaan waxbarashadeena iyo guud ahaan caalamka waa inaanu dhammaanteenba aanu isweydaarsanno tijaabooyin muhiima isla markaana siyaasadaha miro dhalka ah isla markaana aanu abuurnaa dabarkii isku xirayay waxbarashada fursadaha nabadgelyada ammaanka iyo horumarka caalamka mudane madaxweyne Soomaaliya waxa ay ka go'an in ay wax ka qabato xaaladda ay ku sugan yihiin deegaanada iyo dalkeena dhinaca deegaanka iyo in sare ay u qaado adkaysiga bulshada iyo jiilka hadda iyo kuwa soo socda ee Soomaaliya waxa ay qaaday tallaabooyin aad u waaweyn iyada oo hay'adda maareynta dhinaca deegaanka ay jihaynayso inay sameeyeen isbeddello heer qaran tusaale ahaan migleelidda waaxda deegaanka ee isbeddelada cimilada ee xafiiska ra'iisul wasaaruhu waa tallaabo dhinaca saxda ah loo qaaday waxaana aan ku kalsoonahay in waaxdaasi ay waxtar hogaamin leedahay ayna hogaamin doonto dhaqaajinta iyo dhaqangelinta shuruucda iyo siyaasadaha deegaanka tani waxa ay caddayn u tahay in ay sida ay nooga go'an tahay in aanu wax ka qabanno cimilada loona helo deegaan fiican oo nadiif ah isla markaasina barwaaqo ah run ahaantii isbeddelada cimilada waa halis ku soo kordhaysa caalamka masiibooyinka deegaanka Soomaaliyana maadaama ay tahay dalka ugu xeebta dheer qaaradda Afrika waxa ay wajahaysaa saameyn sii kordhaysa oo dhinaca badda ah heer kulka taasi oo siyaadisay xaalufinta deegaanka abaartii dhacday 2017 Soomaaliya waxa ay saameyn weyn ku yeelatay deegaanka dhaqaalaha iyo kheyraadkii dabiiciga ah ee dalka waxaana dhaawac weyn uu soo gaaray 600 qasaare gaaray 600 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah oo soo gaaray dabeecada taas waxa sidoo kale hoos u dhac uu ku yimid wax soo saarkii deegaanka waxaana taas ay caddayn u tahay waqti adag in uu ku soo fool leeyahay dhaqaalaha Soomaaliya ee dhinaca xoolaha maxaa yeelay ku dhawaad 93% kheyraadkii dhinaca dhaqashada xoolaha ee gobollo ka mid ah Soomaaliya waxa ay arintaas saameyn ku yeelatay tan ayaa saameyn weyn ku yeelatay ilaa iyo 6.2 milyan oo qof oo Soomaali ah oo u dhiganta 60% guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku tiirsan xoolaha